koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan keenin No, Zoo! أبو فوسا لقموها يا مقو مانتا والله أنا بدبادية بلد كمانتا بكت إيا بعضها كوبضا ليح قراحة كده عضي بالي كوي وقود الرواحي كده عين وسارد الشغالة هي الشغالة تدبضن أو وسير كحقينك وسارد كمدي هانا واكود انتين انكسي بضننا واكود اوعان فعاذا كدبنا دقال قدها كده عي والله صواف شري ولما مانتا وحياب لهيد أيضا قاشان لوعين أياب بولسكي صواف شرين مركب باعكسي مانتا بوكسي يسوبدلين والشباب waxaa la yiri qaraxii soobe afar qof oo uga dhimatay marka baladka wana la joogaane may qaraxyada ka yareeyaan bari gaasho buuga dhacde boqor allowna balmarsi bari gaasho buuga dhacde boqor allowna balmarsi abdullah askuwala indil leeyod bila madahlebahay wal eebawi war abdillah maanta absi iyo ceebo guriga kula jiraahalay marka in la bilqaysta garway warnimo yaanu qaraxo markuu dhacay ilaa hada gabay baan waday haddii uu khamiistiya sabtiga sixiridin sheegay arbacayna maalmaha kaleba xilis ka saaraynin oon dawladdeennii awood celisa keenaynin qaraxiina shacabkiiyo bulshada lagu dhammaynayo idinkuma dhacnoo jaallayaal waydun aragtaane nagataaya qaraxyada waqad madaxa beeshaane warwariye dhowr waxa uu yidhi qaraxyadan mar hore ayaa laga digay ee sirdoonka Soomaaliya maxay uga hortagi waayeen war dhowr waa qabaar moogay horta mi isweydiiyo Soomaaliya sirdoon ma leedahay war haano yaro ma doon walaa biil ay helaayeen ma doon waayeen rooga jireen hang yoona darbiya isku fadhiyada waa leeri war waligiiba kamaydan hortagi jirine imika ka daba tagaysaan war calaalka iska dhaaf cali dheer hore idinku sheeg in dadka New Zealand lagu laay u aarayeen warka cali dheer waxa ka jawaabay Sheekh Shibili wuxuu yiri dadkan aad maalin kasta Muqdisho ku leenaysaan soo muslim maahan marka aad u aarayso muslimka lagu laay New Zealand war anigu waxaan idin dhihi lahay intay dhisayaan guryaha intay dhalayaan caruur dunidan dhalanteedka badan intuu dhidibkeedu jiro dadkeenu dhammaan mayee war hooy miinada dhigiyo libkiyo qaraxaad wadaa aduunbuu dhuxula iyo dhimbilan naar kugu ahaan dharaarta qiyaamahe dhamacda ma joojisaan haddii la jooji waayo maxaad qaban kartaa beeru haddaysan bawd leehayn bahalada qawow bannaan allah saalo war dalal ciidan lahayn cadow iskama difaacayna dhagaysta ciidanka xoogga dalka cabashadoodu waxay ka socotay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose maanta hiiraana ku soo darsantay batuulo batay birooyin hogaad ma aha arintoo basaasnagati war ciidanka shabeellada dhexe guurti beeleed wasiiraa waati loo diray kuwa shabeellada hoose guurti kuma lahan miyaa dawladda war warka naga dhex gelin dhagaysta cabashadii ka timid maalmahan ciidamada xoogga iyo codadka madaxdeeda sare qaar cadaynayo labada goortaan cabiray oo cayn kasta u eegay cadaawaha in lagu caawin baad camalka mooda war marka ciidankii joogay shalay risaas isku fariijiyana la yiri maantana taagtaaga ka dhex jira la yiri say wax ka yihiin marko waafo gudoomiyelinka dhiki wiifti noo ka dhiida la muhraan u widaayay waradeero ciidanka Soomaaliland xuquuqdooda iyo xaqooda way helaan mar kasta mar dhowna waxay xaqiijinayaan xuduudda Soomaaliland ee idinku malmaluuqa ku jiraniyow warwarna haysiine xukuumadda Soomaaliya iyadoo bugta iyo bacdo ay ka socoto wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ayay waxay tacsi u dirtay Ciraaq waxaan ka tacsiyeena ayay tiri dadkii doonta dalxiiska ku dhintay wabiga Dajla war taas waa geed karawaabnimo war masaar madii moorada tiidii la kooda moor kale oodase ha uniiba mashkiidna haysatay may haydadku may daari war arintaasi waa arin saxa madaxdeenu waa caalami war dawladda Soomaaliya waxay u yartay safiirka Jeneefa u fadhiyay war dawladda Soomaaliya waxay ka aamustaan la yiri odayn looga soo horjeeday buuraleyda Golan Heights inay leedahay Israa'iil
goofa walayka wariya garad leemininku gobyane laba dal ninkii heesa dal inuu dayac meesha waa ku jirtaa midaa la dayacayaa markaad leedahay buuraha Goolanta Heights miyay Soomaali leedahay war waxaan idin leeyahay gabadhii Aisha ee gobolka Midug Seef oo xumada loogu dilay aabaheed baa hadlay wuxuu yiri nimankii falka geystay dibadda loo dhoofiyay madaxweynaha Puntland ayaa ka dambeeyay buuna yiri haddana ma asilo dhoofisa la galay maaha war caabud waaqna mid kale fal xumaha ka dhacday baa leeyahay nin baa gabar masaafaystay kadibna waa kufsaday kadibna waa la soo qabtay maxkamada la keenay cadaalad xumatii ugu fal xumeeday xukuntay maxkamadii meherka gabadha ayaan ku xukunay bay dhaheen war garsoorka caabud waaqi kii gurceel isku meelay ka soo jeedaan waradeer hablaha xalal xumadooda naga daayahay daydan waxba ka qabanayn anigu waxaan qabaa ragga uu dumarka kufsanayo dhan in ama la dilo ama Uganda loo dhoof Uganda looga baahan yahay dad gabdhaha kufsade hatta war fayla ko weeri Musafani jawaabtiisa siidi warnamo sheekaya ablaan idin haya hadda ka hor xilligii hogaamiye kooxeedyada ayaa nin kamid ahaa odayaasha waxa uu yimid niman aqoon-yahano sheeganaya waxay yiraahdeen duqiyo aqoon-yahanadii qaraabadana ururka inaan kula maamulaan rabnaa yiraahdeen wuxuu yiri horta maxaa tiin adinku aqoon-yahano waxaan nahay yiraahdeen 15 sano dibadda wax ku soo baranayay oo PhD holder haysta qaarkeena jaamacadu dibadda ka dhigaabay yiraahdeen marka waxaan rabnaa ururka siyaasadiisa inaan kala shaqeyno wuxuu yiri xaadhe ugula shirkoobaydiin ururkan aniga wadhe waxay yiraahdeen PhD baan haysanaa aqoon-yahanana wuxuu yiri PhD walla kartoon dibadda laga keenay ma xaad kale haysatiin war aqoonteena wax walba ka weyn yiraahdeen wuxuu yiri odagii inta qoslay arnin subax gashow suuq iyo taransate iyo shilke iyo biitim talid qumba marsahay miyaad rabtiin aad kartoon dibadda laga keenay kula shirkoodiin nabe PhD ragay rabtaa war sheekadan waxaad ka soo xigatay ninkii la yiri dul yar dulmi kama dhamaado dudunna ciidi kama dhamaato mar kale aan kuugu celinayaa PhD ragay rabtaa wala ragga hadda jooga ayaad u qabtaa ninkaas inuu la hadlayo alla ilaahay manto suud midoon ka jiro madaxjoona haliin to tan elenga aragaan oo kiyaal midoon anfulo aag biyo ka jiro galanta ka hayso isteegaw PhD raga fadaas inoo leer mudun jow war qurba joogi qaran ma daafacde PhD raga bay rabtaa war qurba joogana loo sheegaysaan waa irantii maalmacaada gaadhay orgigii rida mooday war kartoon dibadda laga keenay haduu wax tarayo xaaladdu sidaan uma ekaateen PhD rag bay rabtaa afarta gabli inoo la fiiriyo en leero oo kiyaalkana la durugsido wal mataraaso PhD raga fadaas naga aamusa buugta iyo bacdu rag ka hortagay rabtaa PhD na ragay rabtaa dawladdu inaan mucaaradaan rabtaa naga taga ilaahay khayr haysiiyo